بسم الله السلام عليكم سلاشان أساتذة قليل وحرجينا في عندي سود هذا عسكري آمصر culays qarsoon ee curadka maxay ka dhigan tahay inaad tahay curadka qoyska fiidiyogan waxaa loogu talagalay hogaamiyaasha qoyska curadada qof kasta oo raba inuu dareemo culayska qarsoon ee curadka oo daawan kara ku soo dhawaada fiidiyogan maanta saaxiib ma dareentay noloshaada inaysan adiga ku gaar ahayn go'aamada noloshaada in lagu leeyahay go'aan kasta oo aad qaadasid inuu saameyn ku leeyahay dadka dambeeya inaad tahay curadka qoys Soomaaliyeed ma ahan kaliya magac waa shaqo aan fasax lahayn waa mas'uuliyad aadan codsanin balse laga sugayo inaad si fiican aad u gudatid culays aadan adigu shaqaysanin curadnimadu ma ahan kaliya magac waa culays qarsoon Axmed waa wiil 24 jir ah kaasoo soo dhameeyay jaamacadiisa waxa uu rabay inuu raacdo noloshiisa oo uu rumeeyo riyooyinkiisa oo uu gaaro hadafyada noloshiisa laakiin habeenkaas waxa uu la fariistaa xisaabaadka qoyska kirada qoyska lacagta dugsiga ee walaalihiisa shoppingka walaashiisa baahida hooyadiisa iyo walaalihiisa Axmed ma ooyo mana cabado ma calaacalo markasta uu dhol cadeeyaa oo waxa uu xirtaa maaskaro oo ah waan xooganahay waan adkahay waxaan ahay curadka qoyska askariga aamusan laakiin gudihiisa waxa ka socda duufaano walwal ah fikrado fara badan dareeno aad u xoogan mariyada ayaad raactaa matan familkaaga ayaad dhistaa walaalahaaga miyaad korisaa mise adiga mustaqbal samaysta sheekada Axmed ma ahan mid asi u gaar ah waa mas'uuliyad waa culays kaasoo haysta dhammaan curadada qoysaska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen si ay u dhan yihiinba waa sheekada kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ay curadnimadu u noqotay xabsiga qarsoon ee ay ku jiraan curadku waa mid qaraba markasta inuu waalidka raali geliyo inuu dadkoo dhan raali geliyo walaalihiisa raali geliyo walaashiisa raali geliyo familka uu ilaaliyo askariga aamusan kaasoo wax walba ilaalinaya curadnimadu waa mas'uuliyad aanan adigu codsanin balse noloshu ay ku siisay ilaahay uu ku dhiibay curadku waa waalidka labaad ee walaalihiisa waa ilaaliyaha nidaamka qoyska waxa uu naxariistaa qof walba waxa uu dhibaatadiisa xalliyaa qof kasta waxa uu murugada la qaybsadaa farxadda la qaybsadaa walaalihiisa dhammaantood kan yar ilaa kan weyn balse asigatiisa aaw balse habeenkii hurdada ayaa ka hada fikir awiis sideen nolosheeda u hormariyaa sideen walaalahayga ugu farxiyaa sideen waalidkayga u caawiyaa waxaan u ducaynayaa maanta curad kasta oo qoyska Soomaaliyeed saaxiib ilaahay culayska kula garab galo dhammaanteena waxaan nahay halgamayaasha qarsoon ee familadeena dareenkeena qof kasta ma fahmi karo oo ma dareemi karo inaga unba is fahmi karna inaga unba is dareemi karna mas'uuliyadaasi aan la loo dhiibanin waa inaan sida tay u qaadanaa culayskaasina saaran waa inaan aqbalnaa oo aan ka jawaabnaa oo aan ka falcelinaa waa inaan noqonaa kuwa waalidkooda ay ku faanaan naftooda horumariyay nafta familkooda wax u qabtay walaalahoodana noloshooda horumarinaya oo dhisaya waxa ina saaran ma ahan culays yar ma ahan mas'uuliyad yar balse ma ahan inaan nafteena ilaawno ma ahan inaan nolosheena aan hilmaano ma ahan inaan tayada aan ka fikirino aan teena aan dayacno qof kasta oo curad ah kaasoo fiidiyogan daawanaya saaxiib waxa tahay askari qarsoon ee familkaada qoyskaaga naftaada iyo noloshaada maqaal caan ah kaasoo loo qoray Psychology Today 2025 ayaa waxa uu sheegayaa dhalinyarada curadka ah badanaa waxa ay ku koraan dareen ah parentification waalidnimo waa marka qofka ubadka ah laga rabo inuu noqdo waalidka walaalahooda taasoo keenta inuu qofku uu ilaabo baahiyihiisa gaarka ah noloshiisa khaaska ah riyooyinkiisa hamigiisa iyo higsigiisa nolosha si uu u daboolo baahiyaha qoyskiisa tan walaalihiisa hooyadiisa iyo aabihiisa qof kasta oo dhalinyaro kaasoo ku nool Soomaaliya waxa uu wajahayaa caqabado nololeed haba ugu darnaadeen kuwa curadeeda ah hogaamiyaasha qoysaska qof kasta oo curad ah waa inuu guuleystaa ma ahan dooq ee waa daruuri waxa ku saaran mas'uuliyad aad u weyn waxaad sidaa culays aad u weyn ma ahan inaad cabatid ma ahan inaad calaacasho waa inaad sidee tahay u qaabishaa oo u qaadata uguna falcelisaa curadeeda waxay u dagaalamaan si ay naftooda u badbaadiyaan tan qoyskooda u kormariyaan taasoo ku keenta daal maskaxeed kaasoo saameynaya caafimaadka maskaxdooda iyo jirkooda iyagoo aanan gaarin soddon
waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo aanan gaarin da'da 30 haddana u eg odayaal sababtoo ah waxaa haya culays aad u weyn waxay sidaan mas'uuliyad qarsoon waxaa maskaxdooda ku dagaalamaya fikrado fara badan iyo afkaar aan xadid lahayn mas'uuliyad weyn iyo culays qarsoon ee curadnimada haddii aad la kulantid ama aad aragtid qof curad ah kaasoo u halgamaya nolosha qoyskiisa tan naftiisa iyo familkiisa haddaadan wax u qaban karin bilis ha dhaawacin waxa uu haystaa culays ku filan waxa uu haystaa mas'uuliyad ka weyn tan naftiisa haddaadan dhayi karin bilis ha dhaawacin saaxiib inaad tahay curadka qoyska tiirka qoyska ma ahan caqabad ee waa sharaf uu ilaahay ku siiyey rabbina uu kugu karaameeyey sababtoo waxa uu og yahay inaad awoodi kartid oo aad qaadi kartid mas'uuliyaddaasi sababtoo Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha culayska ku saaran mas'uuliyadda ku saaran fikradaha maskaxdaada ku jira dhammaantood alle sabab ayuu kugu dhiibay oo waxa uu og yahay inaad qaadi kartid oo aad ka imaan kartid ha calacalin oo ha cabanin waad awoodaa waad ka imaan kartaa haddii aad naftaada daryeeshid naftaada wax u qabatid ma tihid dareyste ogow noloshu waa balance naftaadana wax u qabo familkaadana wax u qabo cadaadiskan faraha badan iska qaad oo naftaada u naxariiso ogow inaad tahay qoyska curadkaaga waa nasiib uu rabbi kugu manaystay saaxiib ogow ma ahan inaad naftaada dayacdid adigoo ka fikiraya cadaadiska qoyskaaga naftaada waa inaad dhistaa noloshaadana waa inaad horumarisaa waa habka keliya aad qoyskaaga wax ugu qaban kartid ee ma ahan inaad adiga isdulaysid oo isbaabisid ha isburburinin isdhis naftaada horumari noloshaadana wax u qabso si aad familkaaga iyo qoyskaaga aad wax ugu qabatid waan ogahay waxaa ku saaran cadays aad u weyn mas'uuliyad aad u ballaaran balse waad awoodaa waad qaadi kartaa waadna ka imaan kartaa ee aamin midaas naftaadana se ha ilaawin faa'iidooyinka ay leedahay curadnimada waxaad baran doontaa hogaaminta waqti hore go'aan qaadashada iyo adkaysiga iyo qaadashada mas'uuliyaddaada sabirka adkaysiga iyo maareynta waqtiga iyo qaadista mas'uuliyadda noloshaada si buuxda cadaadiska walwal joogto ah fikir had dhaaf ah stress iyo anxiety iyo luminta waqtigii dhallinyarnimadaada iyo dareenka inaad dareemaysid inaad cidlo ku tahay mas'uuliyadda ku saaran oonan jirin cid kula qaadaysa oo kula fahmaysa saaxiib si aan isku badbaadino waa inaan sameeyno 5 talaabo oo ficil ah oon hadda kula wadaagi doono midda koowaad xuduud samee set boundaries qoyskaaga jeclow naftaada jeclow naftaada daryeel riyadaada dhiso noloshaada dhiso adigoo iyagana aadan ilaaweynin xuduudo u samee waqti sii naftaada waqti sii qoyskaaga waqti sii walaalahaaga waqti sii waalidkaaga xuduudo u samee oo kala xirxir maarey oo si aqliyeysan uga taxadir dhammaantood qodobka labaad la hadal la sheekayso oo la saaxiib waalidkaaga si xurmo leh oo naxariis leh ula wadaag waalidkaaga culayska ku haysta iyo wax kastoo ku soo ziyaada noloshaada noqo saaxiibka koowaad ee waalidiintaada waa iyaga dadka kaliya si dhab ah kuu fahmaya oo ku daryeeli doona qodobka saddexaad maalgasho naftaada ha bixinin 100% dakhligaaga qayb u dhigo mustaqbalkaaga qayb sii naftaada si aad ugu daryeeshid ha ilaabin waxaad tahay qof nool naftaan ilaahay baa kugu aaminay ee iyada daryeel si ay kuu daryeesho waqtiga dambe ogow saaxiib hadba intii aad naftaada maalgashatid ayaad familkaagana caawin kartaa ee ma ahan inaad naftaada cadaadisid noloshaadana aad burburisid si aad iyagu u caawiso qodobka afraad hel meel aad ku neefsato ku nasato aad ku degto hel saaxiibo ama asxaab ama dadku la mid ah oo sidaadoo kale ah mas'uuliyaddaada saaran culayskana aad ka sheekaysataan ood isku nafistaan ood isku neefsataan sababtoo ah haddaad keli la noqotid fikradahaasi way ku burburin doonaan way ku baabi'in doonaan hel meel aad ku nafisid iyo dad aad ku neefsato si aad ugu saarto maskaxdaada culayskan faraha badan ee ku saaran qodobka shanaad dheh maya si xurmo leh ogow codsi kasta oo ka yimaada qoyskaaga ma ahan mid degdeg ah wax walboo lagu weydiisto baahi kasta ma dabooli kartid adigu waxaad tahay qof keliya ogow waxyaabaha daruuriga ah iyo waxyaabaha kale codsi kastana ma ahan mid degdeg ah oo daruuri ah
saaxiib waan ogahay mararka qaarkood inaad rabtid inaad cararto oo iska baxsato culayska ku saaran awgiis. waan ogahay habeenkii inaad ka walwalaysid sidaad walaalahaaga u siin lahayd nolol ka wanaagsan taada. waxaad tahay geesi dhab ah kaasoo ku jira nolosha maalinlaha ah, kaasoo aanan helin biladii uu qalmi. waxaad tahay geesi aan la siinin biladiisii saxda ahayd. laakiin ogow, dunidu kuma duminayso haddii aad naftaada u naxariisatid oo naftaada aad dhistid. ilaahayna kuguma darin inaad keligaa xalisid dunida oo dhan iyo dhibaatooyinka dhammaantood. ogow, waxaad tahay qof keliya. culayskan faraha badana ma qaadi kartid, dhibaato kastana ma xallin kartid. ogow, waxaad tahay qof keliya. wixii aad xallin kartid xalli, wixii aad maarin kari weysina ka soco. ogow, dunidoo dhan keligaa ma xallin kartid. waxaad tahay bani aadam, xaqna waxaad u leedahay inaad riyootid adigoo aanan dembi dareemin. haddii aad dareemaysid culayska curadka, noloshaaduna ay tahay cariiri, wareer iyo dhibaatooyin faraha badan, ku soo bir SG Community. halkani waxaan ku dhisnaa dhalinyaro leh qiyam toosan, mabda' adag iyo akhlaaq buuxda. sidaadoo kale waa halka ay ku nafisaan halyeeyada qarsoon, geesiyaasha dhabta ah ee nolosha maalinla ah, kuwaasoo aan helin xurmadii iyo sharaftii ay u qalmeen. halkani waa hoygaaga, waa hoygeena. ku soo bir oo ha seegin fursaddan. jiilkan waa jiil dahabi ah. SG Community. subscribe sar, like sar video oo share garay oo la wadaag qofka la mid ah sidaadoo kale aad og tahay inuu haysto culayska noloshiisa ee curadnimada. halkani waxaan kula wadaagaynaa inaad isku dheelitirtid qofnimadaada, shakhsiyadaada, tan qoyskaaga, tan familkaaga iyo tan noloshaba. nala soco oo nagu soo bir si aad noloshaada u hagaajisid dhan walba iyo dhinac kasta. hadda waxaan ku weydiinayaa su'aashii ugu dambaysa. ma tahay qof qoyskiisa dhisaya isagoo naftiisii duminaya, mise waxaad tahay qof naftiisa dhisaya si uu qoyskiisa u badbaadiyo? ku soo bir halkan ayaadna ka heli kartaa isku dheelitirka dhabta ah ee noloshaada. aad iyo aad baad u mahadsantiin asxaabtayda qaaliga. waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysteen videogan, aadna fahamteen culayska dhabta ah ee saaran curadyada, askarta qarsoon ee faamiladeena. halkan waxaan ugu hambaleynayaa qofka soo orod ah. saaxiib keligaa ma tihid oo boqolaal dhalinyaro ah noocaagoo kale ayaa jira. ogow qiimahaaga, waad awoodaa oo waad ka imaan kartaa insha allah. nagu soo bir oo nala nafis. waxaan nahay dhalinyaro noocaagoo kale ah, kuwaasoo doonaya inay si wada jira u guulaystaan, naftooda u horumariyaan, qoyskoodana ay u dhisaan. waxaynu balanaa videogan video xiga insha allah. kulanti dambe wax xiiso leh. ha seegin, jiilkan waa jiil dahabi ah. SG Community. mac salaama.